Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda kusoo dhawaada janalkeena Maryam Cooking and Henna. Maantana waxaa idiin wadaa muuqaal kale oo cusub. Maanta waxaa idiin wadaa ceesh iyo maraq ayaan kasoo tuureynaa. Waxaa ka dhigan kartaa casho ama waxaa ka dhigan kartaa qado. Halkan waxaa ku haysanaa laba galaas oo bur ah. Galaaska isticmaalana waa kaasa, xaafad kasta waa laga helayaa ama guri kasto. Iyo saliid iyo caano qandac iyo xabad ukun ah. Burka ayaa halkaas kusoo shubanay. Waxaa ku dareynaa 3 qaando sokor ah iyo wax yar oo cusbo ah. Iyo waxaa ku dareynaa qaandada yarta oo leedite ama fixiso hadba qof kasta siduu u yaqaano. Leebitada haysatidna inaysan liirsanin ayaa mar walba fiican si uu kugu faxo. Hal xabo ukun ayaa ku dareynaa. Hadaa rabtid waa iska dhaafi kartaa adiga iyo joyskaaga. Caanahana budo waa ka dhigan kartaa. Meesha caanaha aniga ka isticmaalana biyo qandac ayaa ka isticmaali kartaa. Tartiib ayaan ugu soo dareynaa. Waa kusoo qaseynaa. Mar walba aad qasaysid cajiin waxaa wanaagsan inaad ku qastid wax qandac ah ama caano qandac ama biyo qandac oo diiran si uu dhaqso kugu qamiiro ama uu kugu noqdo mid aad u qurux badan markii aad dubtid. Wax yar bur ayaa kusoo dareynaa si uu noogu dhagin. Saliidana wax yar kusoo dareynaa. Inaa xashtid ayaa si fiican mar walba si uu aad ugu qurux badnaado markii aad dubeysid. Baaquligana meesha ayaan ugu soo gedisanay si aad si fiican ugu xasho. Waxaa isticmaalaysaa meesha calaacasha ah mar walba markii xashaysid si uu si fiican isugu xashtid oo isku dhex galo. Maxaa wanaagsan mar walba xashitaanka mar walba aad ka sii badisid inuu noqdo mid qurux badan. Sidaas ayuu ku soo baxay oo isku soo xashnay sidiisii. Waxaa soo sugeynaa 30 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo. Meesha ay kusoo dabooleynaa bac ayaa isticmaali kartaa ama daboolka oo kaliya isticmaali kartaa. Meel ayaa soo dhigeynaa. Waxaa soo diyaarsanaynaa maraqa. Halkan waxaa ku haysanaa nus kiilo hilib geel ah. Adiga hadaa rabtid waa isticmaali kartaa hilib ari oo si oo xoogaa dhexdhexaad u soo jarjaray. Maxaa kaloo ku haystaa meeshaas baradho, karoot iyo barbarooni iyo basal iyo kabsar iyo toon iyo bocor. Waa soo jarjaraynaa. Digsiga kadib isla aadaynaa. Saliid ayaa kusoo shubtay, basasha ayaa kusoo daray, waa isku soo shiilayaa. Waxaa ku dari doonaa markay isku soo shiilanto xawaashiyadii oo noo diyaarsan, xawaash kaari, xawaash duudhuub, filfil iyo jumbe ayaa isku soo dareynaa. Intaas markaa kusoo kariyo hilibkii ayaa haddana kusoo darayaa. Waa isdhex gelinayaa. Haddana qudaartii oo ii diyaarsan oo soo jarjaray. Wax biyaha kuma dari doono. Hadhow ayaa ku dari doonaa. Intaas ayuu kusoo karsami doonaa. Biyaha markii aan ku daraayay waa ka ilaaway. Sidoo kale kabsartii toonta inaan duubay ayaa u maleynayay ma aanan duubin. Barbarooniga ayaa ku darnay. Meeshaas ayuu noogu soo dhamaaday maraqii. Waxaa u soo laabanaynaa. Cajiinkeeni wuu noo soo qamiiray. Waxaa ka dhiganaynaa kuus yar oo isla eg ayaa ka dhigaynaa. Waa kaasa intaas xaba ayaa kasoo dhigay. Burkaas meesha ku jirana waan ku fidin doonaa. Wareeg ayaan ka dhigi doonaa. Maxaa fiican mar walba si uu kuula ekaado oo iskula ekaado uusan kaaga kala dheeraanin labada dhinac inaa u gadgadisid markii aad fidinaysid. Waa kaasa qafiifna ma ahan butacna ma ka ahanayo. Mar walba waxaa fiican inaa markaa fidinaysid oo sidaas ka noqdo. Sidaas ayaa kusoo dhameynay. Burkii ayaa mariyay ayaa u dhaxeeyay. Waa isa soo kor saaray. Dabka birta ayaa isla aadaynaa haddana. Birta ayaa dabka soo saaranay. Waa noo soo kululaatay. Xaabada u horeysaa saaraynaa. Ha isla aragno.
dabkan waa inuu dhexdhexaad kuu noqdaa si uusan dhexda ciriin kaaga noqonin asigoona bislaanin. hoos sidaas markay kasoo noqoto dhinaca kale u rogeynaa. dhinaca kale markii u rogno wuu soo fuurayaa. markuu soo fuuro waxaa fiican mar walba markuu soo fuuro ayuu qurux badnaanayaa, waayo dhexda markaas waxay noqonaysaa mid kala baxsan. sidaas ayuu ekaaday, wuu soo fuuray labada dhinac. kaaliska aragoo kusoo baxay. meeshaas ayaa kusoo diyaarsanay maraqeeni, cabitaankeeni iyo ceeshkeeni. aad ayaa u mahadsantihiin daawashadiina. sidaas ayuu ekaaday labada dhinac. naga ilaawin subscribe inaa noo saartid. mar walba daawashadiina waa ku mahadsantihiin. waxaa idin leeyahay bye.